السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي الشيخ محمود وشعبك الصومالي. عاو فرحان قرولة، فرحان محمود آدم، فرحان قرولة وقرح منه لو دقي مانتد agaaraha balcad miya agaaraha basra meel la yiraahdo lagu sheegayo afgooyi inay u dhaxayso balcad miya xamar iyo balcad inta u dhaxaysa miya adugu meelayoogaas ayaa wararkan dhageystay sheegaya ninka in lagu dilay. marka ciwaankaygu waxa weeye farxaan qaroole iyo nabadoon cilmi hagar guure oo ceel qooxla ku dhintay shalay 35 kilomitir xagga bari ka xiga tuulada moqokori waxaan ka soo horjeediyay al-shabaab yaa u jawaabi doona waxaan ka wadaa farxaan qaroole yaa u aari doona, raggii dilay yaa dili doona, nabadoon cilmi hagar guure yaa u aari doona, raggii dilay yaa dili doona, al-shabaab yaa eedsiin doona farxaan qaroole allow maxaa lagu watay dilkiisii yaa ka yeersiin doona, nabadoon cilmi hagar guure dilkiisii al-shabaab waan eednay ilaahayow maxaa lagu watay yaa ka yeersiin doona. saasaan ka wadaa. warkeenna waxaa saldhigu aayaddan qur-aanka qaala tacaala وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نفط ساعة إلهي وقرن روح معفوض كوتا لما يسعى سوك يماشى يا وقتك وعوين ماها إن إلهي ما هنا عد كلا أي شيء عند دليل كريم ويعيد معنى هذا أول وتكقاضنا يسا وحين نفل أنت أمر إلهي وحاجة سمده كيمد والله محفوظ حلي يجي الله قري نفتح إن ولاته مركي نفت اللي جلني وقت يجي الله قري إن الجاري ويه مركا جنرال فرحان محمود آدم فرحان قرولة ما أنت وقت يسكوك سيدا الشلي nabadoon cilmi hagar guure waqtigiisu ugu ekaa. marka aayadaas ayaa warkeena lafdhabar u ah. marka dhimashada iyo malakamoodka layskuma bajiyo, laysuguma hanjabo, waa wax ilaahay qoray oo nafla kasta waddo u marayo oo cid ka leexanaysa la arkin wey. intaa haddaan aayadda qur-aanka kaga tago oo ciwaankayga u soo noqdo, warkaygu maanta afarey weeye, afarey oo anigii dadweynaha dhegaysta oran jiray war afarey baan idiin wadaa. maanta warkaygu afarey weeye, 4 fallaarood buu ku socdaa iyo 4 tir. laakiin waxaad ii samaysaan youtube-kayga marsoobax magacaas marsoobax qora. markuu youtube-ka ii soo baxo odagan garka cadle waxaa ku dhufataa subscribe, like, share, gambaleelkana taabo. intaasna waa dadweynahayga daawado facebook iga daawado wey. waxaan isleeyahay 4 kooxood, 4 qolo, 4 group ayaa shacabka Soomaaliyeed jawaab ka sugayaan inay ka bixiyaan dilka Jeneraal Farxaan Qaroole iyo dilka nabadoon cilmi hagar guure. haddaan ku hormaro Jeneraal Farxaan Qaroole jawaabta ugu horeysa waxaa laga rabaa taliska ciidanka booliska
iyo qoladii uu xukumay oo haramcad magacaas lagu naanaysi jiray ama loo yaqaanay waa inay jawaab degdega ka bixiyaan oo al-shabaab dhahaan al-shabaabow waxaan u aarnay ninkii farxaan qaroole ahaa hebel baan idinka dilnay farxaan qaroole ayuu u qalmaa jenaraal farxaan maxamuud aadan oo disheen annaguna hebel oo adinka al-shabaab ah oo madaxdiina al-shabaab ugu sarraysa ayaan dilnay jawaabtaas haramcad ayaa shacabka soomaaliyeed ka sugahayaan qolada labaad oo jawaab laga sugahayaa waa qabiilkiisa saleebaan oo waayahanba ay ku socotay wixii duxyi iidaan leh oo ragannimo leh oo dadnimo leh oo magac iyo sharaf leh oo saleebaan ah al-shabaab inay madaxa ka toogtaan waayahan qabiilka saleebaanka oo ku socotay marka waxaa laga sugahayaa qabiilka saleebaan rag u qalma jenaraal farxaan qaroole ayaa laga rabaa nimanka saleebaan la yidhaahdo inay ugu aaraan jawaabtana waa laga sugahayaa waxaa ku qoslayaa al-shabaabow bal horta saleebaan isbarta waadba maqasheenbe qabiilka saleebaan bal isbarta waadba maqasheen qabiilka xawaadle iyo 3 cali madaxweyne bal isbarta wararka aan ka hayo saleebaan anugu saleebaan kama dhex shaqayn intaan sarkaalka Soomaaliya ka ahaan jiray laakiin xawaadle 2 jeer baan dhulkooda shaqo u tagay abgaalka si fiican baan xawaadle u aqaan waxa ka suurtooba iyo waxay samayn karaan ilaa waa ka soo dhex shaqeeyay waa aqaan dabeecadahooda odayaashooda dhulkooda saraakiishooda waa garanaya laakiin saleebaan dhaka maqal baan yaan aniga duufaana aan isku nahay ayaguna ima yaqaanaan aniguna ma aqaan saleebaan laakiin warar badan waa ka hayaa saleebaan niman la mahadiyo la iguma sheegin niman inta qof laga dilo oo weli qof magaca leh oo maamuus laga dilo la iska seexdo oo lagu nabad galo sheekooyinka aan saleebaan ka hayaa saas maaha waa in la eedahayo qofkii saleebaan qof la dila inuu eedahayaan yaad sheekada aan ka hayaa waa sidaas oo Soomaalidu ka sheegtaa marka horta bal shabaabow waxaa la geelo daq marka geedka cinka daqda lagu yaaba Soomaali layse laakiin maalinka xawaadle iyo saleebaan u gasheen maalinkaas aqoon la'aan nimankaas adina garin ba idin geysay laakiin bal isbarta qolada saddexaad oo laga sugayo farxaan qaroole jenaraal farxaan qaroole inay u aaraan waa qoladii nabadii nolol la oran jiray oo iyaga siyaasad ahaan uu jenaraalku raacsanaa oo janankana siiyey fikirka siyaasadda oo nabad iyo nololna farxaan qaroole inuu ku qanacsanaa ayaan idaacadaha ka maqli jiray anugu mar kasta ayagiina hadda waxay ka boror diiqahayaan intoodii aan maqlay qalabka warbaahinta iyo Facebook iyo YouTube-ka ayay ka hadlayaan waa boror diiqahayaan waxay ku hayaan janankii nabad iyo nolol waa la dilay oo farxaan qaroole ahaa marka nabad iyo nolol boror diiqda arkay boror diiqdiina laakiin meesha boror diiq wax weyn ma ahee waxaa la idinka rabaa ninkii farxaan qaroole ah inaad u aartaan oo al-shabaab ay eedaan oo tirahdaan annaga nabad iyo nolol ayaa farxaan qaroole u aarnay waa haddii borortu ay run idinka tahay wey qoladaasna waa laga sugayaa qolada afraad oo fariina ay u dirahayaan al-shabaab markay farxaan qaroole dilhayaan jenaraal farxaan qaroole waa janamada weliba janamadoo dhan maahane waa janamada al-shabaabna toos ula dirira sida farxaan qaroole oo kale oo qorigiisa qaata iyo qaybta labaad oo nabad iyo nolol qoladii la oran jiray oo farmaajo xukumi jiray siyaasad ahaan xaggooda u badnaa waagu xunka farmaajo hay haddana u badan al-shabaabna xogtaas ay hayaan qoladaasna farxaan qaroole waa dilay janamadiina kale waa ku soo soconnaa wey waa fariin loo dirahaya kuwaasna marka janamadaasuna jawaabtay ka bixiyaan farxaan qaroole inay u aaraan
إنه والبلفيس الدفاع ذو فرحان قرر لمية هذه هي الودين الدفاع كليه كوسو أوران أو فرحان أيسنو أرينا وسوينا كان مضاس وأنا كان مضى إذا كقلب كسيدو روي بوليس كليه ما أسلوبته النساء ميليتريا وحنا ولا جرها وحي كان أنا وإسكو فكر أهايين أما صاحبة أهايين أما إسكو فكر السياسة أهايين أما إسكو فكر ودين ما أي قبل أما فكر صومالي ما يقبل أما فكر إسلامي ما يقبل أنت أسوي مبدأ عدي ولا لها كوا هايين أو كان ما وحلا يرى فرحان قرار إنه آران أو الشاب إتسيا أو ده المحل تدلك فرحان قرار وحي سؤال إنه وضم علمي حجر جورة مع وسلي لما كان مع وسلي ده حوالي أيا لا يهرب إنه آران وضم علمي حجر جورة الشاب نو إني أيضا oo yiraahdaan allo maxaan u watay nabadoonkii saddex cali madaxweyne oo la oran jiray cilmi hagar buure marka macawisley waxay ku dhex jiraan xawaale nimanka marka xawaale waa huba saleebaan waan u maqaydha kama qal laakiin macawisleyda xawaale inay u aarahayaan nabadoon cilmi hagar buure waa huba macna waan huba waxaan ka wadaa aqoontan u leeyahay xawaale intaan ka soo dhaxshay dabeecadahooda waan hubaa macnaa waan hubaa waxaan ka wadaa quality ahaan iyo ragnimo ahaan iyo go'aan ahaan waa awoodaan xawaale guud ahaan gaar ahaan saddex cali madaxweyne inay al-shabaab eedsiyaan nabadoonkii ay ka dileen oo ahaa cilmi hagar buure qolal labaad waa saraakiishii hiiraan ka dagaalamaysay oo taliyaha qaybta 27 oo hiiraan uu ugu sareeyo waxaa la rabaa raggaasuna inay u aaraan nabadoon cilmi hagar buure labadaas qolo ayaan ku gaabinaynaa marka ninkii la yiraahdo nabadoon cilmi hagar buure inay u aaraan waana sugaynaa haddaan shacabkii nahay al-shabaab waxay barteen oo muddo ku magaageen oo muddo ku nabadgaleen haldoorka Soomaaliyeed hadduu diin yahay hadduu siyaasad yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu mataqaana jaga yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu wasiir yahay hadduu jan inay dilaan ku nabadgalaan laakiin intaan hadda carab ku dhuftay waxaan u kalsooni badnahay macawisleyda xawaale iyo nimankii haram cad la dhaho oo farxaan qorool xukumi jiray labadaasu jawaab degdega oo al-shabaab taariikhda u gasha oo ay ka sheekeeyaan kana shallaayaan inay bixin doonaan labadaas qoon yaan u kalsooni badnahay anu haddaan ay cabdirashiid cali sheekh maxamed intaasu waa yaa u aari doona ama yaa u jawaabi doona al-shabaab qaabka u dhintay farxaan qaroole haddii aan wax yar taabto qarax miino ayaa loo dhigay baa la yiri wararka qaarkoodna waxay sheegayaan in remote control qarax lagu hagayay oo baabuurka uu saaran yahay ka soo qaad baabuurka saddexaad inuu yahay laba baabuur markay ku soo gudubto baabuurka saddexaad ayuu saaran yahay farxaan qaroole ee taabo marka batoonka wax lagu qarxinayo qaab noocaas waa laga sheegayaa Facebook iyo YouTube-ka haddee maska qiyaas iyo been iyo mala awaalba ma soo xor ku nahay hayaan lama yaqaan arrintan marka labaan u kala qaadaynaa midda koowaad furmaha dagaalka janamadu raaca koowaad iyo raaca labaad iyo ka saddexaad midna ma galaan barta hogaaminta oo markaa ku habboon in lagu hogaamiyo ciidanka ayay fariistaan farxaan qaroole allah u naxariiso janaa farxaan qaroole wuxuu caan ku ahaa TV-gan aan ka daawan jiray sida askarta oo mataqaanaa raaca koowaad mar kasta
unuga raaca koowaad ah ama kooxda raaca koowaad ama horinta raaca koowaad ayuu ka mid ahaan jiray qorigiisu sidii askarigii qaadan jiray aniga hadda weligay boolis ma noqon laakiin military baan aqaanaa booliska aan waagi Soomaaliya joogi jiray waxaan ku aqaanay niman uu sharciga iyo looyaro xaggaas xooga saaro oo waxawoodu dacwad qorid iyo maxkamadii u banaan jireen laakiin dagaal iyo furun niman daraawiish la yiraahdo meelaha furuntii ku arkay jiray ama hawlgallada meel fulin jiray marka kulli janamada militarigu raaca koowaad iyo kala ka saxa midna ma tagaan ilaa mar dhifa oo arintu inta adkaato saraakiisha iyo askarta uu macnaha moral support siinayo waqti degdeg meesha in lagu dhaafo la rabo ciidanka la jebiyo oo saacad yar oo kooban inta joogo oo moraalka u soo dhisa ka soo noqdo ma ahane jaran qori wata oo ma taqaan si askari dabla u dagaalamaya macna taadkada military kamid ma laakiin hadda farxaan qarool asagu military ma ahayna wuxuu ahaa nimankan la yiraahdo booliis buu ahaa marka janamada booliska waxaan idin leeyahay dib u soo baxo wixii gaashaanle ugu sareeyo basra iyo meelaha al-shabaab kala diraysan oo ka saaraysan saraakiisha aadaysa gaashaanlaha ugu sareeyo gaashaanle iyo kabtan laba xidile iyo xidile raggaas anaga kulli militariga raggaas loo fuliyo operationnada gaashaanle dhax wixii loo gaar gadaal iyo barta hogaaminta ay fadhiyaan gaashaanle sare general marka bal janamada aad furunta hore iyo ma taqaana unuga koowaad aad raacinaysaan bal xijaaro ka bedel arrintaas hadaa rabto adinka taadkadiina booliska ka mid ahayna baltan militariga ku day oo janamada dib u saar bal furunta hore ka saar intaas waa qodobka labaad waxaan ku xirahayaa qodob labaad oo raba inaan ka hadlo ayaan kan qaabka loo dilay farxaan qarool ku xirahayaa idaacadu waxay sheegayaan 400 oo askari iyo 30 sarkaal imaaraadku inay xamar ka qoranayaan oo leeyihiin waa tababarayna sidii barigii hore oo ay joogi jireen farmaajo intuu ka cayrin dalka oo xasan maxamuud joogi jiray ay xero ugu lahaayeen Gordon Meel oran jiray xero markii dambe la xiray ay ciidamo ugu tababaran jiray imaaraadka danta ay ka leeyihiin ciidamada ay tababaranayaan ana waxaan qabaa xasan maxamuud inuusan ogolaanin tababarkaas 400 oo askari iyo 30 sarkaal inuu ka joojiyo haddii loo qabo ciidan la tababaro oo Soomaali loo tababaro nimanka Turkiga ah loo diro nimankaas imaaraad iyo Masar iyo Sacuudi ka tababar adag oo NATO standardkooda ama levelka ama heerka NATO ayay Turku u soo tababarayaan marka haddii wuxuu tababar batay nimankaas tababarkooda caalamiga ah loo diro danta ay ka leeyihiin imaaraad waa kow inay jaajuusin u noqdaan markay tababaraan mushaarna siiyaan shaqada xamar ka qabanayaan iyo Soomaaliya waa jawaasiis waxay wararka u keenayaan imaaraadka iyo safaaradda imaaraad dantaasay ka leeyihiin waa kow qofkii muhiima sida farxaan qarool oo kale nabadoon cilmi hagar guur oo kale inay dilaan oo loo diro oo imaaraadka iyo safiirka imaaraadka u diro oo dhahan qof hebel soo dil ama dhowrkaas qof soo dil waa shaqada labaad shaqada saddexaad sidii 9.6 milyan 9 milyan ama 10 milyan oo 400 ku dhiman sidii airborka ay ugu soo dageen inay u fuudeeyaan waxyaala airborka la soo dagayaan ama hadday rabaan xataa boorarada kala soo dagayaan dhulka ah ama badda kala soo dagayaan ciidamadoodaas inay u fuudeeyaan waxyaalaha noocaas ayay u qoranayaan imaaraad halkaa waxaa ku jirta marka farsamadan lagu dilay Janaraal Farxaan Qaroole waxaan idin sheegay dhowr jeer shacabka Soomaaliyeed imaaraadka Masar Sacuudiga waxaa xukuma Yahuuda iyo Mareykanka Yahuudiga Mareykanka sirdoonkoodu
وسردون وقلمه أقون أهان لمن كان له FSB أو KGB الواجهة الأورنجري والراشيان Chinese كما أقان ما سمعنا Chinese كو ويكوه سيان روشك يا أمريكان كا يا رجال بيتك ويكوه سيان لكن يهودا سردون كولا يا سردون كأمريكان كا يا سردون كإنجليز كا يا سردون كفرنسيس كا يا سردون كشرمل كا سردون كطلياني كا دت كا رجال بيت كا سردون كتركي كا دت كاسو تابركودو روش ما هن عد إسكعيلين كرتو أو كله ما ملايين Chinese كل إسكعيلين كران وهالسوي وحامر كتابرا مصاريدا يونيون كان له إمارات كا يا سعودية وحاتابرا يهودية مريكا باتابرا أو وين مريكا كأوبلا سيدا أوجد فرسمة اللغة لينا يو دتك الله فربرتا أو سوماليدا وحوي نرش أوطان سيدي كان كي جلعوا وكلا جلعوا وحمر الودري كان كي دوق مجال حمر هانشري واجي دول دون حسب برا وأبقى لكها كان كي ريبورا معها يوسف طلع علي وشارد قاش عندك أوتشو وشري هم قلنت وكلا نمان بروفيسورات نمان سياسيين نمان حلبانا أو وضنك نرشوا وحبلا ذلك وفايديني سيدتك تات كذا لقولينا يو يسردونك لقولينا يو يقلبك لقولينا يو يفرسما لقولينا يو وفرسما أصل كذا شيشية كتبت والله جاي وضدك الله براي أو الاستعمال إني الصوماليين ومشي كفلوني وأما إماراتها براي أما إثيوبيا تابرتي أما كينيا تابرتي أما مصر تابرتي أما السعود تابرتي النقطوي لكن نمك إكسبرتيز كا أو خبرة وبرنامج كان وكل ما نيوه واليهود يا أمريكان وإمارات السعودية مصر بتابرين بركة قلبك أي صومالي هيستو أما النساء هالنقطة أما ميليتري هالنقطة أما بوليس هالنقطة أما أسلوب هالنقطة يا أقون هامبا وحاكا سرية دتك عدوغا أو إمارات كمدي هاي أو دلك جوغا أو إثيوبيا كمدي هاي أو دلك جوغا أو كينيا كمدي هاي أو دلك جوغا وإن مركا لغو تلقلا أو جنمada Soomaaliya ay ku talagalaan dadka ay ka soo horjeedaan marka laga reebo ciidamadii Turku soo tababaray oo haram cad iyo nimanka gorgor iyo nisa intii Turki tababaray ma ahane inta kale oo tababar qabin waxa ka tababar qatarsan oo ka qalab xalisan oo ka information xalisan nimanka cadowga ah dadka ay tababaranayaan sida Imaaraadka oo kale مصر أو كلا سعودية أو كلا إثيوبيا أو كلا كينيا أو كلا سيدا أوجد حديد الربو اللي سكعليو وإن لهلا بركة تركيا سيكلوا اللي سكعلين كرامه مركا هالكاسن وإن حق الله سارا oo lagu talagalaa al-shabaab waxa tababara Imaaraat waxa tababara Ethiopia waxa tababara Kenya waxa tababara Masar waxa tababara Saudi waxa tababara kuwa xalna fadhiyo sheeyaha oo dawlad ka sare ayaa tababara al-shabaab waxa tababara nimankii Afghanistan ka dagaalami jiray oo ama Carabta aha ama Afghanistanka aha ama Pakistanka aha oo Soomaaliya jooga oo loo diray oo al-Qaacida u soo dirtay maadaama al-Qaacida garab ka mid yihiin al-shabaab ayaa tababaran nimankan al-Qaacidana waxa tababaray si ayada Mareykanka ayaa tababaray 1978kii si Ruushka meesha looga saaro marka waa in la iska ilaaliyaa dadkan al-shabaab
إمارات مصر سعودي كينيا إثيوبيا نمك حنا فضية تابر كودا يقرب كودو وحليسوي information كودا يسردون كودو وحليسوي انت أصلا وحن كيره عندما لو قرأيوه وأفر بقول وأسكري يصدر لغو شاقي حتى لو قرأ كودا حمر كسعوسي الشيء إذا عموه مدحوين حاسي محمد وين متوشي أهرنا سألتو أننا شعب كصوماليين وحبضا الأنوان كهالله وح أننا شيشية ودلك الصومالية مصلحة دي كشقينا يا وحان أغناه وكوك كالصونا تركيا انتو ذاك كل سوريكم قبنا أما مسلم ها هذين أما أفريكان ها هذين أما ريقل بيض ها هذين أما إيشيان ها هذين أما تشاينيس هذين أما راشيان هذين أما هندي هذين أدون كميل شيرين أكيم هذين أنا وحان أقولنا هاي أما كوكان عسلنا هاي تركيا يا أردوغان أيا كتيرة يا سفيرك تركيا وجوغا صومالي مقدشو انت كله شكي بان كقبنا وليبا شكي وين بان كقبنا وليبا ساس بان كقبنا وليبا ساس وين بان كقبنا بركا حاشي محمودو جوجي أسكرتان لشيغيو جوجي إماراتك دلك النوغا صار إماراتك سفارة دي سنة حمر نكسار مصر سفارة دول دلك النوغا صار سعودية سفارة دول دلك النوغا صار كينيا ويليام روتو هدو نقوة سيدة أبي أحمد أوكالي وضعت كل عوايو ودولة الصومالية هي شعبك الصومالي هي دينتي دلك الصومالي ديبك وكدين وهورو أمرو أيضا سفارة دول سفير كان دلك النوغا صار عيدمو تبوين كنتوي قدر نوغا صار إثيوبيا حتى صور ديرتين سف قرن ويدين دلك النوغا صار سفير كودن حر waxaa ii soo haray qoobka saddexaad oo ka hadlahaya xalane nimanka fadhiya oo ah qaybta ugu weyn oo qaraxa lagu dilo Soomaalida dhabarka toogashada Soomaalida asinaashinka Soomaalida hawada iyo badda iyo mataqaan dhulka waxa laga soo gelinayo ama daawo dhacday ama daroogo ama mataqaan hub وأيجا كمسؤولة تابركا information كهوبكا الشباب إمارات مصر السعودية كينيا إثيوبيا وحسية أيجا حنا فرديول دلك صوماليا قرح كرمان مايو السنيشن كرمان مايو دروغ كرمان مايسو دول إيه هو يبض إلا جسوا قليا وحسا عدراه كرمان مهيان إلا ما شيشايا حنا فريق دالك اللغا سارو نوع يهيمبا oo ugu horeyso kuwa atmis la dhaho oo 28 kuna oo Ugandiska oo meesha dollar inay qaataan u fadhiya oo ku leeyahay Soomaalida jubada shabeelada hoose dad inta laamiga safa oo miira ku xira remote control ku qarxiya inta ka taga dhowr boqol oo martaqaana tilaabo dadka noocaas u leeyahay shacabkii inay sii joogaan Soomaaliya waxa ka wakiil ah siyaasiyiinta Soomaalida oo madaxweynaha iyo barnaamijka ugu horeeyaan iyo labada gudoomiye aqalka sare iyo aqalka hoose ma aragno adaanka shacabka Soomaaliyeed nahay ma aragno wax faa'iido oo ugu jirta diinta iyo dalka Soomaaliyeed dadka xalna fadhiya oo sheeyaha wax faa'iido ku qabna malaha tusaale ahaan waxa uu leeyahay baridogle kama doosta degan waxa taabara mushaarkan siya Mareykan yey u shaqeynayaan marka waa yahay kama doosta baridogle degan waxa uu shaqeynayaan Mareykan asaga ku shaqeysanay shaqadu rabo u dirsanaya maadaama uu masruufa asaga RRU kuwa la yiraahdo oo isaaqa oo Hargeysa jooga jira oo asagu taabaro mushaarkan siya yey u shaqeeyaan ma Soomaaliland bay u shaqeeyaan ma isaaq bay u shaqeeyaan ma Soomaali u shaqeeyaan ma uma shaqeeyaan Mareykan bay u shaqeeyaan kuwa waxa jooga ayaguna magacyo leh oo jooga meesha Puntland jooga oo Mareykan taabaro mushaarkan siiyo
يي وشقيا ما جرتان وما شقيا محمود سليمان وما شقيا سومالي وما شقيا مرنك مصروفته او تابرته وشقيا حمر waxa joogo kuwa gaashaan la dhaho oo abgaal iyo habar